بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaanyeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah oo fiinta baan Allah deeqoynta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlayaa maanta barnaamijkii aan qayb sii daayay qaybtiisii dambe oo ku saabsanaa qadiyadan Ethiopia horta yaa gadaal kaga jira xogo rasmi ah oo ka soo baxay ama ku jira website-ka UN-ta intaanan u gelin waxaan ku hormarayaa Abiy Ahmed oo hadlay ayaa hanjabay Soomaaliya mar kale u dhaartay ku hanjabay inuu dad saan ugu soo yaacin doono dadkan dhabaynaya oo ordaya oo yaacaya oo xuduudeena ka gudbaya waa dad la soo diray oo shaqo loo soo diray oo qaban doona shaqadaas anytime. waxay arrintaani keentay already inay al-shabaab bilaabaan inay laayaan dad Oromo ah oo degan magaalada Balad Xaawo. waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba inay amar siiyaan Oromadu inay dalkooda ka baxaan iyo Amxaarada iyo dadka Ethiopiaanka ah dhammaantood inay ku laabtaan dalkoodii degdegna uga baxaan waddanka. lama damaanad qaadi karo amnigooda. al-shabaab baa laynaya hadhowna Soomaaliya laysay baa la oran doonaa markaas dad shacab oo Soomaaliyeed la layn doona dadkaasi dalkeena ha ka baxeen. hanjabaada uu ku hanjabayo inuu biyaha naga goosan doono oo wabiyaasha u xiri doono waa threat iyo dagaal. waxaan rabnaa ninkaas saa u dhaaranaya bareesharkii adduunku waa dhammaaday. madaxweynuhu inuu shaqadiisa qabsado wax kale yuu samayn. madaxweynuhu ciidamadiisa ha noqdeen kuwa ugu horeeya ee laga saaraya dalka oo noqonaya ATMIS qaybtii saddexaad. haddii kale khiyaanadii ay maleegtay imaaraadku xilligii ay madaxweynaha ka ahayd UN-ta madaxweynaheenuna dabinkaas uu ku dhacay ayaynu kulligeen waxaynu u noqonaynaa marti in imaaraadku dalka qabsado dacmo sariic iyo waxyaabihii xaftaradii uu ka sameeyey caalamkana uu ka samaysto Soomaaliya wadadii uu isagu jeexay bayna ilaa ay hadda ku socotaa. wuxuu ninkaan isu soo indha adkaynayo la qaylinayo la dagaalamayo imaaraadka oo iyaguna fulinaya shaqo cid kale ay leedahay oo ku taxalluqda marinkaas oo leeyahay xuutiyiin baa lagala dirirayaa oo Etoobiyaanku la dagaalanka xuutiyiinta shaqo ka qabanayaan cidda wadata waa la garanaya. waxaan dib idinku celinayaa shirkii ka dhacay New York 12 December 2023 sanadkii la soo dhaafay. xasan sheekh maxamuudna uu tagay New York. waxaa la keenay plan qorshe cusub. ATMIS waa baxaysaa haye ciidamadeenu ma dhamma kuma filna haye al-shabaab dagaal baa lagula jiraa haye hadda ka hor baan sheegay Black Lion iyo mashruuc ay wadatay imaaraadku oo Etoobiyaanku ciidankooda ay ku howlgeli lahaayeen inuu xoogaa fashilmay kadib markii wada shaqayntii ay xumaatay dhanka dowladda federaalka ah. xasan sheekh maxamuudow shirkaas aad guddoomisay oo wadamada daneeya Soomaaliya oo 6 ah ay kugu weheliyeen sida waddanka Qatar, Turkiga, Saudi Arabia. saddexdaa waddan oo ah dad saameyn ina ku leh si aan negative ahayn oo positive ina ku leh iyo waddanka la yiraahdo Imaaraad iyo Ingiriis iyo Mareykanka oo dhexdhexaad noqon kara. labadaa waddan oo hore oo negative saameyn taban ugu leh oo dhibaato ku haya ummadda Soomaaliyeed khatarna ku ah xaalad amnigeeda iyo midnimadeeda iyo Mareykanka labadaba ciyaari kara. afkana kale Soomaaliya waa ixtiraamayna territory-ga Mareykanku hadduu rabo inuu wax ka qabto dhibkan Ethiopia wado si sahlan buu wax uga qaban karaa. cadaadis rasmi u saari karaa cunaqabatayn buu kusoo rogi karaa. imaaraadku dhihi karaa ka bax hawsha Soomaaliya ma raba inuu yiraahdo.
hawshaas oo ay dabada ka soo riixayso dowladda Israa'iil oo la rabo xuutiyiinta in la yiraahdo Israa'iil bay maraakiibteeda khatar ku yihiin Ethiopia difaacaysa therefore Ethiopia waa in Red Sea la keenaa waa wadadii lagu qaatay dhulka Soomaaliya 1884 wadadii exactly the same Soomaaliya waxay noqotay wadanka lixaad ee ugu khayraadka gaaska badan oilka therefore cid walba waa rabtaa cid walba oo ku jirta way rabtaa madaxweynuhu muxuu sameeyay markii uu halka tagay wuxuu saxay barnaamij cusub oo la yiraahdo SSSBP waa mashruuca uu la tagay meesha mashruucaas waa la ansixin doonaa haddaan baarlamaanku degdeg wax uga qaban baarlamaankiina nin khariban oo aadan madoobe la yiraahdo oo iimaanka alla ka qaaday oo lacag uun igu shuba degdeg wax saa u marsiinaya waxbana aan fiirinayn waxna aan akhriyin waxna aqoon saddex qof oo unschooled oo uneducated baarlamaankii hogaano waxa la wixii loo keenay ordisiinayaan oo socodsiinayaan haday lacagtooda helaan dadkaas iyaga waxa socota in atmis laga saaro qaybtii saddexaad wadanka 14 kun baa soo haraya mashruuca SSSDP oo Somali Security Sector Development and Plan ayuu madaxweynuhu geeyay meesha waan ognahay madaxweynuhu ma haysto koox aqoon-yahan wax u qorta ma haysto dad looyara oo khubaro oo arrimahan security-ga ku takhasusay oo waxaan u diyaariya cidda qortay waa naqaan waa imaaraad mashruucaas waxa la geeyay xilligaas ay iyagu joogeen xilliga ay madaxweynaha ka haysan jireen xilliga ay geyn jireen security council hortooda xilligii ku xigay way maxaa dhacday marka waxaa la yiri waxaa la bedelayaa atmis waa baxayaan ciidan inuu ku filan ma haysano ciidan kale la keenaya maxay noqon doonaan ciidamada la reebayo hari doono 14 kuna iyagana waa la qaadi doonaa sababta sanadkan aakhirkiisa inay dhamaadaan way waxa hari doona 4 kun ilaa 5 kun oo kamida waa Black Lion waa Ethiopian dagaal bay ina kula jiraan ciidamadoodana dalkay joogan wayna joogi doona mushaharna anaga siina Soomaarkiis waxa kale oo la propose gareeyay markii ay arintaas qaateen oo laga helay arintaas waa fiican tahay leeyiri waxa la propose gareeyay Newton and multilateral mission la yiraahdo oo cusub oo aan la aqoon mandate-kiisa goormay ku eg tahay tiradiisana aan la aqoon intee bay dhan yihiin maxay qabanayaan waxay ilaalinayaan main infrastructure and apparatus ama infrastructure-ka muhiimka sida Villa Soomaaliya iyo 6 maamul goboleed magaalo madaxdooda meesha ay dawladdu ka degantay madaxtooyadooda waxay ilaalinayaan meelaha dadku u badan yahay sida suuqyada iyo meelaha laga ilaa shabaab laga ilaalinaya Soomaarkiis waqtina male tiradoodana lama yaqaan waxay noqon doonaan lama yaqaan African Union ka soo mareen mashruucii aan shalay sheegay oo hay'adii Yahuuda ahayd iyo Imaaraadka oo shirkad wada maalgashi badan gashaday Ethiopia iyagoo shirkad ku meel kale shirkad ku ninkii Morocco u ahaa boqorka la taliyaha xagga dhaqaalaha dalkana u ahaa Andre u ahaa aan sheegay mashruucaas iyo mashruuc ay Imaaraadku kaga aargoosanayeen dawladda Soomaaliya xilligii laga saaray Soomaaliya oo ay Ethiopia u guureen oo ay rabaan inay Ethiopia ay qabsato Soomaaliya ayaa lagu fulinayaa mashruuca waxa kamid artikalo meelaha lagu daabacay in ay Imaaraadku aakhirka hadii arrintan adkaato ay keeni doonaan mashruuc kale oo barbaran ku wareejinay sheerkayagii baan siinay halkaas ay tagayaan koox yaro musabixi iyo tiinkiisa dadka shacabka ay ma rabaan waana ka soo horjeedaan mana ogola koox yar ayaa waxay wadaan oo abaabulayaan inay dadka buli gareeyaan oo yiraahdaan dadku argagixisay ugu yeerayaan dadka jihaad bay dadka ugu yeerayaan dagaal hal la galay leeyihiin wax noocaas waxaan arkayay Abiy Ahmed oo soo qoray Canada aan la hadlay prime ministerkeeda waxaan ka wada hadalnay ma garanaysaa read out-kii markaan akhriyay waxa lagala hadlay anagu rabo inuu nagu handado Canada iyo Mareykanka iyo dad YouTuber iyo wararkiisa waad maqlaysaan ma arkaysaa madaxweyne dalka ha u dhiibin gacantana ha u gelin cadow iyo gumaysi khudbadahaaga isdaba yaala oo kii dhalinyarada ciyaaraha markaad ka hadlaysay uu ugu dambeeyay
nin diyaar u ah dagaal uma ekid nin raba inuu aqbalo Soomaaliya inay midowdo oo istifaacdo madaxweyne waxaan ballan qaadnay inaanan ku mucaaradin waxaan ballan qaadnay inaan kula jirno geeskaaga istaagno waxaad ballan qaaday oo laba madaxweyne hore u ballan qaaday inaad qoortaada dhiibatay in la iskiin hor fariisiyo adiga iyo dani in la iskiin hor fariisiyo imaaraadku aad labadiinaba u shaqaysaan waxa ay ma rabaan inay iskiin hor fariisiyaan oo idin maslaxaan waxaa soo baxday markii laydin yiri soo fariisto oo la diyaarinayay shirkii garowga ka dhacayay oo dadku isugu imaanayay oo Soomaali lagaga talinayay arinteeda loo diyaar garoobayo waxaa soo baxday madaxweyne inaad baarlamaankii ku bilowda dastuur baan furaya kelmadan ka oranaya dastuurka la furayo qodobka 49 ee maamul goboleedyada cidina kuma dhaqanto waa hore la baasiyay waxaan cidina ku dhaqmin qof iyo cod oo labada aqalba baasay farmaajana meel public ku saxiixay prime minister kuna akhriyay cidina kuma dhaqmin 13 xildhibaan ama senator oo la siiyay gobolka Banaadir meelay ku taal male iyo meelay jirto oo labada aqalba baasiyeen si official madaxweynuhu u saxiixay lama hayo iyadana waxaan lahayn waxyaabo aad u badan oo dastuurka ku qoran baanba lagu dhaqmin maxaad ka faa'iidaysaa hadda bedeshay hal maamul goboleed hadduu diidana aad og tahay inuusan function aan lahayn shaqaynayna maxaad ka bedelaysaa ugu mashquulaysaa maxaad dadka u kala qaybinaysaa maxaad u rabtaa in layska hor yimaado la diriro maxaa ku xiga waa lagu sheegay khatarta ay leedahay dani wuxuu diyaar u yahay inuu ku dhawaaqo waa go'aya arrintaasi waxay Somaliland siinaysaa green light there you go waa u jeedaan qaar baa ka baxay annaguna aan baxno qiil bay siinaysaa ay ku baxaan ma waxaad ka shaqaynaysaa madaxweyne dalka in imaaraad la wareego oo dacmu sariic iyo xaftaro iyo masaa'ibtii Yemen ka dhacday iyo cadan inay ka dhacdo dalka hay tahay ciidamada imaaraadka iyo Etoobiyaanka ah oo la rabo in lagu bedelo ATMIS African Unionka iyo EU-duna ay lacagtooda bixiyaan inta koofiyadii loo geliyo dalkoo dhanna maamul goboleedyadoo dhan la geynayo maxay tahay imaaraadka dhulka laga siinayo wadanka boosaaso iyo bariga fog iyo xaafuun waxaa loo diyaarinayaa in la siiyo lagu wareejiyo imaaraad iyo Israa'iil iyo isku daaban dhinacaan Kismaayo 30 kilomitir oo dhul beereeda la siiyay madaxweyne imaaraadka dalka maxaa u siinaysaa imaaraadku weligood meelay tagaan oo ay gacan saareen oo dal muslina oo aysan dab saarin ma jirto shuruucdooda iyo dhaqankooda sidaasa waa maxay xiriirka ina ka dhaxeeya inaga imaaraad oo madaxweyne aadan ka hadli karin ma doonayno anagu labadan barnaamij Newton multilateral mission oo inta badan ciidankaasna ah Ethiopian u badnaan doona ama wada noqon doona hadda Ethiopiadan sayna way oo noo dhaaranaysa ninka noo dhaaranayo inta kalena ay tahay civilian iska imaan doona wadamada kale Afrikaanka ah soo dalkii gacanta marka adigu gacantaada ku dhiibi maysid oo wareejin maysid cadowgii ummadda Soomaaliyeed madaxweyne su'aalahan ku weydiinayo waa su'aalo daruuri u ah dalka maxaa xal u ah marka koowaad madaxweyne qaado go'aanada aad u baahan tahay qabso shaqadaada ha ku mashquulin baarlamaan iyo dastuur iyo dalku emergency buu ku jiraa baarlamaanka in la xiray yahay tuutay inaad gashatay ciidamada alert inaad gelisay yahay inaad booqatay yahay xuduudaha meelaha xuduudaha ah xuduud beenaadka ah inaad booqatay yahay waxay ahayd inaad iska yaraysid hadallada international issues-ka kaga hadlaysid ee aan loo baahnayn maxaa kugu kalifay inaad ka hadashid Ukraine iyo Russia adoo dagaal kugu socdo maxaad isugu diraysaa qof maxay ku siinayaan waan ognahay inay kugu khasbayaan oo pressure ay tahay maxaad ka faa'iiday marka maxaa ku siisatay maxay tahay madaxweynaha kaligiis shaqaynaya oo aan khubarada wadan oo aan aqoonyahan la tashanayn oo aan siyaasiyiintii hore iyo madaxweynayaashii hore iyo taliyayaashii hore iyo wasiiradii hore intuusan degdeg u dispatch karayn shir caalami ah oo wadankoo dhan aan qabanayn oo wax alla qofkii wax yaqaan u yeeranayn oo aan la hadlayn oo la tashanayn madaxweyne what is this maxaad ka baqaysaa noo sheeg
annaga dhan baa ku garab taagan ma waxaa rabtaa in layska hor yimaado xabad laysla dhaco ma waxaa rabtaa dalku inuu kala tago under your watch ha ku mashquulin waxaan macno lahayn diyaaradda Ethiopia as immediately as possible ha loo joojiyo hawadeennana ha laga mamnuuco 5 freedoms oo loo saxiixay bay waxay ku dhaqmaan 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 madaxweyne dalka dal jiruu ahaa markii lagu dhiibay dal wuxuu ahaa leh policy internationalka lagula dhaqmo waxaa la timi policy aan la garanayn wuxuu yahay oo cid walba ay shulukh walakh waddanka iska maamulanayso waddankan aan anigu hadda joogo Nairobi Kenya intay Soomaaliya la dirirtay dawladdii hore baa laga saaray safaaradaha iyo safaaradihii la xiray xiriirkana loo jaray maxaa ka dhashay inaysan Kenya fareed nagu ahayn anymore inay dib u fariisatay inay maqashay mutual respect iyo mutual interest in lagu wada dhaqmo inay ka fariisatay arrimihii Soomaaliya faragelintoodii in badan oo kamid ah ama kulligeedba isbedel inuu dhacay waxaan madaxweyne adduunku ma yaqaan waddan kula dirirayo oo ku dhaan madaxweyne prime ministerkiiba intay istaageen noo dhaaranaya markaas adigu waxaa leedahay waxay rabaan baan siinayaa hadday aniga ii yimaadaan hadday adiga ku yimaadaan maxaa ugu celcelinaysaa kelmaddan aan isku dayna inaan fasirno oo qurxino ma qurxin karna anymore maxaa ku hoos duugan ma rabno annagu conspiracy inaan ciyaarsiino waa isku dayaynaa inaan qurxino sax hadday ku yimaadaan inay waddadu adiga tahay albaabkuna adiga yahay in aday ku soo maraanna ay tahay laakiin waxay rabaan baan siinaya maxaa u siinaysaa waxay rabaan there must be mutual respect and mutual interest diyaaradoodu waa diiday inay wixii lala saxiixday raacdo waa diiday diyaarada aan falaageedii wadan oo diyaarada aan ahayn Ethiopian Air bay dalka soo gelinaysaa kumana jirto waa 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 meelahaas wey kuma jirto 5 freedomska la kala saxiixday lacagtii lagu qoray $15 ilaa iyo hadda ma ay bixin awoodaada maxaa isticmaali weyn awood baa leedahay isticmaal awoodaada hawadeena ka mamnuuc diyaaradda Ethiopia ka xir hawada wax kala ku sameyn ciidamadoodana atmis ka saar degdeg ha u bixeen waxa baxaya iyaga ka dhig nin cadow ku abaad ciidankiisa ku reebaysa dalka dadkana waxa u sheegaysaa dalkan xoreynaya oo duulaan baa leeyahay yahay farqa ha iga foqdo anaa waxay rabaan siinayeen maxaa siinaysaa mada badda iska leh oo siin kara waxay rabaan waa bad uu ku sheegay maanta ku sheegay waa kuugu celiyay been buu ka sheegay security councilka hortiisa wuuna inkiray inuu badda rabo inuu qaato ee commercial baan u socdaa buu soo ma arkays madaxweyne sidaan si maaha dalka badbaadi tag fadhiga fariiso dadka is haysaan la fariiso iyagana waxaan ugu baaqiyaa maamul goboleedyada khaasatan dani dalkaanu yuu ku burburin adiga camalkaaga iyo caradaada iyo colaada idinka dhaxaysa adiga xasan sheekh dalkaanu yuu ku burburin gacan kalena gelin haddii aadan ahayn qof cid kale soo dirsatay u shaqeeya u tur dalka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa dagaal xilli dagaal baa lagu jiraa u sheeg dagaalka rasmiga oo la rabo in la qaado kuna garab istaag maamul goboleedyada oo dhan waxaan ugu baaqiyaa la shaqeeya madaxweynaha oo garab istaaga mucaaradka waxaan ugu baaqiyaa inay ka bartaan annaga inay naga bartaan qaabka wax loo mucaarado xilligan oo kale madaxweynaha la garab istaaga dowladda loo hiiliyaa kulligiin kacaan baa la noqdaa ka barta mustaqbalka soo socda dowlado kale hadday yimaadaan sidii waagii aanu Kenya is haynay aad idinku Kenya ula safateen annagu Ethiopia ula safan mayno dalkaanu leenahay wadaniyadu waa naga dhab madaxweynaha waxaan rabnaa inuu wadaniyada ugu hogaamiyo inuu ka faa'iideysto jaaniska oray jaaniska ka faa'iideyso waa ku taageeraynaa ka faa'iideyso midnimada Soomaaliyeed midee ummadda horumar samee dhaqaaji waxa laga rabo ku dhawaaq safaaradda xir Ethiopia maalin walba waxaan kaloo rabaa inaan oo la yaabay igad ka bax madaxweyne igad sababtoo ah safaaradihii bay la kulmayaan wiilal yar yar oo igad oo Soomaali ah oo igad u jooga Muqdisho baa safaarada la kulmaya arrinta Soomaaliya inay iyaga nagu matalaya wasaaraddaadii arrimaha dibaddu gabadhaadu kuma filna aqoonna uma leh waa xiranta cali balcadna aqoonteeda ma leh mana aha wasiir ma haysatid wasiir diblomacy yaqaana ma haysatid dad aqoon yahana wasiiradii laybow ra'iisul wasaaraha empower gare shaqo qabo
awood si ra'iisul wasaaraha uu ku shaqeeyo aniga aqoonyahana wax qaban kara kaligaha muglayna ordine dhaqaaji ummadoo dhan dhaqaaji hormuud noo noqo nakaxee la tasho madaxweynayaashii hore dhibaatooyinkan waa dhici jireen sidii loo xallin jiray dadkii xallin jiray la tasho aqoonyahan tiro badan baa jira oo Soomaaliyeed oo howlahan yaqaan oo wax bartay madaxweyne dadkaaga ururso ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha lala shaqeeyo la garab istaago intaasaan oranayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibka inuu ku soo socdo layna ku wado oo isa saaran oo layna ku soo wada duulay Ilaahay dhinacayna ka mariyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda inoo badbaadiyo waa isdifaacaynaa insha Allah ta'aala waana iska celinaynaa cadowga soo duulay oo weerarka ah dadka oromada ah oo yaacaya dadka xuduudaha degan dib ha u celiyeen oromooyinka yaacaya dib ha loogu celiyo meesha ka imaanayaan dadka safka ku jira duulaanka oromo kaliya ma xabasha ku jirta amxaara ku jirta cid kasta ku jirta dib ha loo celiyo in badan oo kamid ah jawaasiis way in badan oo kamid ah wasirdoon dib ha loogu celiyo wadankooda boordarrada iyo xuduudaha dadka degani xil ha iska saareen baabuurta yay qaadin baabuurta daysa qaadin way lugeynayaan waa niman ku soo talagalay hawl wata qorshay leeyihiin dream baa ku jira 1967 warqad la qoray oo lagaga hadlayo rabitaanka Red Sea badda cas inay rabaan sidaas laga hadlayay sidaa hadda sameynayaan baa laga hadlayay hayla salaasa ka hadlayay waagu tagay Mareykan markuu ka waayay wuxuu rabayna ruushku u tagay si ruushka uu uga joogo dagaalkii 64 dabadeedii si ruushka uu weydiisto inuu ka daayo Soomaaliya awoodda uu siinayo ciidan madaxweyne ama buuraha ama buur ku tiirsano waxa uga wareegaysa Turkiga saacadan oo aad u baahan tahay ma garanayo imaaraadku ma aha qofku difaacaya oo ku ilaalinaya oo walaalnimo kuugu turaya oo ku dhaqaaleynaya ma aha lacag waa la helaa waana la waayaa imaaraadku waa negative dalka hadaadan ka saari karin security contractiga u saxiixday hala kansalo kaska joogin dalkooda hatta ciidankooda hayste Turkiga u saxiixay mid fuul ah badana isaga difaacaya barigana isaga difaacaya rajaan leenahay markaa dad inta yeelin daacadka ma aha dagaalku waxa aad sheegaysidna waxba ka jira oo ah inaad rabtid inaad badda bixisid khayr badan baa idin rajeynayaa billahi tawfiiq salaamu